السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warweyn iyo mudanayaal ku soo dhawaada warkii dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saaka ka gudoomay waraaqaha aqoonsi danjiraha cusub ee dawladda Faransiiska. danjiraha cusub ee dawladda Faransiiska oo lagu magacaabo Sergey Misetti. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa saaka ka gudoomay waraaqaha aqoonsi danjiraha cusub ee dawladda Faransiiska u soo wakiilatay dalkeena Sergey Misetti. waxa uu bedelayaa safiirkii hore ee René Forceville oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi waraaqa aqoonsiga gudoonka ah. waxa sidoo kale iyaguna joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee Faransiiska iyo Djibouti. kadib markii uu madaxweyne Geelle ka gudoomay waraaqaha aqoonsi hadal uu munaasabadaasi ka jeediyay danjire Sergey Misetti waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu u gudbiyo waraaqihiisa aqoonsi. madaxweynaha jamhuuriyadda oo isaguna sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu ka gudoomo waraaqaha aqoonsi. danjire René waxa uu sheegay oo kale in uu isku taxallujin doono xoojinta iyo kor u qaadida cilaaqaadka saaxiibtinimo ay wadaagaan Faransiiska iyo Djibouti. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in magacaabista danjire Sergey Misetti ay ka turjumayso adkeynta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee labada dal ee France iyo jamhuuriyadda Djibouti. guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka iyo gudiyooga u xisaaran maamulka maaliyadda iyo maamulka dawladda ayaa maanta shir wadajir ah ku soo qaatay golaha baarlamaanka. shirkaasi waxa gudoominaysay xildhibaan Caasho Dhabar Geelle. kulanta labada gudi waxa lagu soo qaatay ansixinta lacag deyn ah oo kala saxiixdeen jamhuuriyadda Djibouti iyo banka ganacsiga oo laga leeyahay jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha. lacagtaasi waxa ay dhan tahay 491 milyan iyo 793 kun oo dollar ah oo u dhiganta 85% lacagta loogu talagalay mashruuca laga dhisayo wado xiriirinaysa Galile iyo Dooraale oo lacagtaasi ku baxaysa ay dhan tahay guud ahaan 587 milyan iyo 580 kun. shirweynihii diyaarinta himilada iyo qorshaha ee Djibouti ee ku aadan sanadka 2035 ayaa saaka laga soo gabagabeeyay hotelka Campeski Palace. waxaa lagu soo afmeeray kulan heer sare oo aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan horumarka iyo kobaca dhaqaalaha. kulankaasi waxa gudoomiyay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale. kulankii shalay waxa lagaga hadlay oo la isla afgartay in waxyaabaha sida gaarka loo leeyahay ee sector private loo yaqaano ay qayb weyn ka qaadan karaan horumarka kobaca dhaqaalaha, horumarinta dalxiiska, warshadeynta iyo waliba la dagaalanka saboolnimada. saddexdii maalmood ee uu socday shirweynahaasi waxaa ka faa'iideystay oo ka aqoon kororsaday khubaro ka kala socda wadamada gobolka sida Cape Verde iyo Île Maurice. waxaana la isla falanqeeyay sidii loo hirgelin lahaa qorshayaasha higsiga kobaca dhaqaale iyo horumarka. waxaana ka qayb galay shirweynahaasi wadamada bariga iyo kuwa ku teedsan badweynta Hindiya. gabagabadii shirweynahaasi waxaa ka hadlay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale oo sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu shirkaasi u gudoomiyo. waxa inoo soo koobaya hadaladii wasiirka Naasir Cumar. Ilyas Muuse Dawale waxa uu sheegay in dhulka wadan inta uu leeyahay ayna waxba u dhimeyn horumarkiisa. waxaana miisaal noo ah buuri dalka Cape Verde oo dhan 4,000 oo kiiloomitir kaare oo uu dhaqaalihiisu wanaagsan yahay. sidaasi darteed waxaan oran karnaa in dib u dhaca dhaqaale uuna sabab u noqon karin inta uu leeyahay dhulku. dalka Cape Verde jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ka weyn tahay buu wasiirku 6 jeer. qiimaha tamarta oo aalaaba aan u haysano caqabad weyn oo horjoogta horumarka waxa uu yahay mid laga gudbi karo.
shirkan waxa uu noo kordhiyey khibradda aqoon-yahanada reer jabuuti ee ka soo qayb gala shirka oo noo xaqiijiyey aragtida dheer ee lagu wajahayo dagaalka lagula jiro dibudhaca dhaqaale. horumarku waxa uu dalbayaa in ay iskaashadaan maamulka dowladda iyo dadka iskood u shaqaysta. waxaan ku dhiirigelinayaa buu ku soo gabagabay wasiirka maaliyaddu wasaaradaha kale in ay qabanqaabiyaan kulanno sidan oo kale ah oo lagu iftiiminayo istaraatiijiyadda horumarka ee dalka. wasiirka waxbarashada qaran iyo xirfadaha shaqo Dr. Jaamac Cilmi Cukiya ayaa shalay gudoomiyay shir ay iskugu yimaadeen mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaraddiisa. shirkan ayaa ka qabsoomay qolka shirarka ee wasaaraddiisa. munaasabadaasi wasiirka iyo shaqaalihiisu waxa ay soo bandhigeen waxqabadka sanad dugsiyeedkan soo dhaafnay. wasiirku waxa uu u xil saaray xogayaha guud wasaaradda tacliinta Mudane Haaruun Cumar Aadan inuu ka warbixiyo habkii ay u socotay hawsha wasaaraddu muddada sanadkan. Mudane Haaruun waxa uu intaasi kadib sheegay tixgelinta ka hadlay habsami u socodka hawsha ay wasaaraddu oo naqiray inay u socoto sidii loogu talagalay. wasiirka waxbarashada oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu tilmaamay sida uu raaliga uga yahay shaqaalihiisa waxa uu ku faraxsan yahay una mahadnaqay horumarka muuqda. warar dheeraad waxay noo hayaa la taliyaha farsamada Menfob Mudane Cusmaan Ibraahim Roble. shir ballaan ayaa ka dhacay qolka shirarka ee wasaaradda tacliinta. shirkaas uu gudoominayay Mudane Dr. Jaamac Cilmi Cukiye oo ku saabsanaa inta rabadaanka horteed in la is arko oo laga sheekaysto biilowgii laga sameeyey sanad dugsiyeedka 2013-2014. marka shirka waxaa ka soo qayb galay waxa la wixii mas'uuliyiin waaweyn ahayd ilaa chef de service ahayd ayaa ka maareynta gaarka ayaa ka soo qayb gashay oo lagu falanqeynayay hab geedi socodkii maadatay wasaaradda. marka sidaa darteed waxyaalo waxa la soo qaatay badan ayaa laga sheekaystay. marka pointsha badan laga sheekaystay waxay ahayd sidii tayada shaqada wasaaradda loo xoojin lahaa, wixii dhaliil ahaa, wixii maadartay ziyaado ahaa. marka waxaa maadartay wasiirku Dr. Jaamac Cilmi Cukiye uu ku nuucsaday in geedi socodka uu raalli ka yahay oo maadartay isbedel weyn laga sameeyey wasaaradda oo ku saabsan xagga saacadaha shaqada, maadartay joogista shaqada, tayada shaqada ee lagu habeeyey wasaaradda iyo dugsiyadaba lagu habeeyey. wararka kale dalkana waxaa ka mid ah ciidamada booliiska ee gobolada Ubuk iyo Tajora ayaa xusay sanad guuraha 73aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliiska dalka. war amuurtaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaysaa Muno Jibriil. annagoo ku guda jirnaa xuska sanad guuraha 73aad ee asaaskii ciidamada booliska waxaa sidoo kale laga xusay gobolada waqooyi ee Ubuk iyo Tajora. gobolka Ubuk xafladan lagu xusayo sanad guuraha booliska qaran waxaa hogaaminayay kabtan Adbara Ali Maxamed waxaana u joogay prefega gobolka Xasan Daabale Axmed, maamul goboleedka odaya dhaqameedyo iyo mas'uulo rayd iyo military iskugu jira. xafladan xuska 73 guurada ciidamada booliska sida caadada ahayd waxa la saaray calanka. taliyaha ciidanka booliska oo halka ka soo jeediyay hadal waxa uu isdul taagay sugidda amniga iyo sidii loo xoojin lahaa amniga gobolka iyo dalkeenaba. isla xuska sanad guuraha ee ka soo wareegay aasaaskii ciidamada booliiska waxaa looga dabaaldegay gobolka Cali Sabiix. mar kale aan ka codsado Muno Jibriil inay inoo faahfaahiso warkaasi. iyadoo ay la xidhiidho xuska sanad guuraha 73aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska waxaa sidoo kale looga xusay gobolada Cali Sabiix iyo Tajora xuska sanad guuraha ka soo wareegtay 73 guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliiska. sanad guuraha 73aad ee ka soo wareegay asaaska ciidamada booliiska ee ahayd 22 Juun 1977. xuskaasi waxa uu ka dhacay xarunta booliiska ee gobolka Cali Sabiix.
xuska sanad guuraha 70aad waxaa gudoominayay barefeega gobolka Maxamed Waabari Casoobe waxa uu joogay maamul goboleedka لينو كورنيل عبد الواسع بن محمد كوماندو يعقوب حسين iyo mas'uuliyiin rayd iyo military iskugu jira kadib markii ay cutubka ciidanka booliska ay salaan ka qaateen calanka kadib markii ay cutubka ciidanka booliska ay salaan ka qaateen calanka waxa halka ka hadlay Leonor Daahir Umar Furre oo ka hadlay taariikhda markii la aasaasay ciidamada booliska isaga oo ka hadlay oo sheegay si xoojinta amniga oo ay khusayso qof walba oo muwaadin ah iyo khaasatan ciidamada booliska oo ay u taalo hawsha sugidda amniga iyadoo ay la xidhiidho isku diyaarinta xuska sanad guuraha 73aad ee ka soo wareegay markii uu dalkeenu qaatay gobonimada xarunta akhriska buugaagta ayaa dhaqaajisay barnaamij socon doona 7 maalmood warka ku saabsan arintaasi waxay noo soo koobaysaa Mariye Makacabdi taariikhda gobonimadoonkii waxa kale oo xaruntaasi ka socon doona 7 ciyaar dhaqameed ah oo lagu dalbaadegayo 73 guuraha calanka waxaana halkaasi lagu soo bandhigi doona taariikhdii gobonimadoonka ee dalkeenu soo maray munaasabadaasi waxa ka hadlay ku xigeenka duqa magaalo madaxda oo ugu horeen uga mahad celiyay dadkii si toos ah ama si dadban uga soo qayb qaatay dalbaadega 7kan socon doona 7kan waxa uu suura gelinaysa in dhalinyaradu ay ka war hesho taariikhda dadka u soo halgamay gobonimada dalkeenu uu maanta haysto waxaana rajaynayaa in 7kan ee aan iskugu diyaarinayno 73 guuraha ka soo wareegay markii dalkeenu uu qaatay gobonimada uu faa'iido weyn u keeno dhalinyarada guud ahaan dalkeena warkii caawana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa warka idin akhrinaya anigoo ah Khadar Cabdilaahi iyo Faadimo Saalax waxaan u mahadnaqayaa kooxda warka soo diyaarisay iyo farsamayaqaanada intaanu ku wada kulmi doono warkan oo kale waxaan dhamaanteen idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo